xisbiga South Africa Community Party ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in Somaliland ay xaq u leedahay go'aaminta qadiyadda madaxbannaanideeda isla markaana ay haysato sharciyad caalami ah iyo mid maxalli ah oo ay ku heli karto aqoonsigeeda. Xisbiga South Africa Community Party oo soo xiganayay shir dabayaaqada sanadkii 2020 oo uu martigeliyay xisbigoodu oo lagaga hadlayay dalabka qadiyadda madaxbannaanida Somaliland ee ah in ay noqoto dal madax bannaan ayaa warbixin sanadeedkiisii 2020 oo uu soo saaray Isniintii toddobaadkan ku sheegay in xeerka caalamiga ah ee qaab dhismeedka Afrika uu xaq u siinayo Somaliland dal iskii u taagan oo ka madax bannaan Soomaaliya oo uu ku tilmaamay wadan fashilmay oo aan wax nidaam ahi ka jirin. Xisbiga ayaa intaasi ku daray in xeerka caalamiga ah ee Afrika uu si cad u qeexayo in xuduudihii Afrika ee gumaysigu ay yihiin kuwa kaliya ee la aqoonsan yahay isla markaana ay yihiin sohdimaha loo adeegsanayo xadadka wadamada qaaradda Afrika. Warbixin sanadeedka xisbiga oo aad u dheerayd isla markaana lagaga hadlay dhibaatooyinka caalamka, dhibaatada xanuunka safmarka ah ee COVID-19, dhaqaalaha kuududsaday ee dunida, mushkiladaha taranka bulshada adduunka, cimilada adduunka, doorka Mareykanka ee dunida, colaadaha Afrika iyo arrimo kale oo badan ayaa qayb ka mid ah oo uu qadiyadda Somaliland ku soo qaaday. Xisbigu waxa uu ku yidhi South Africa Community Party ayaa dhawaan martigeliyay shir lagaga hadlayay dalabka Somaliland ee ah in ay noqoto dal madax bannaan. Dalabkan oo salka ku haya taariikhdooda xilligii gumaysiga ee ahaa inay Somaliland gooni ka tahay Soomaaliya oo ahayd dal uu hore u gumaysan jiray Talyaanigu, hadda waa dal fashilmay halka Somaliland xasiloonideeda iyo kobaceeda dhaqaalaba uu dhisan yahay isla markaana la soo waday in ka badan 20 sannadood. Waxa intaasi dheer in dadka reer Somaliland ay rabitaankooda ku muujiyeen afti sanadkii 2001 oo ay doorteen in ay dib ugu noqdaan nidaamkii madaxbannaanidooda iyada oo madaxbannaanida la waafajinayo xeerka qaab dhismeedka Afrika ee ka hadlaya in xuduudaha gumaysiga sidoodii loo daayo loona adeegsan doono in ay noqdaan sohdimaha kala qaybin doona wadamada. Ugu dambeyntiina warbixinta South Africa Community Party ayaa waxa lagu sheegay in xisbigu uu sii wadi doono taageeridda baaqa Somaliland ee kala taga iyo in uu ku dhiirigeliyo dadka reer Koonfur Afrika in ay gacan ka geystaan dhismaha iyo ganacsiga dalka Somaliland.